inantaadaad dhashay ma u guurin lahayd lacag darteed nin weyn oo 70 jir ah. assalaamu calaykum, soo dhowaada. magacaygu waa axmed saki. muuqaalkani waxaa sameeyey wiil u dhashay waddanka iiraan, waxaana uu tijaabo ku sameynayay dadyowga degan tuulooyinkani si uu u ogaada sida ay naxariistoodu tahay, isaga oo iskaga dhigaya nin dhibaato haysata, una sheegaya in wiilkiisii yaraa ee uu dhalay uu dhakhtarka kaga jiro, una waayay lacagtii daawooyinka uu ugu iibin lahaa. qofkii caawiyana waxa uu abaalmarin ahaan u siinaya lacagtaasi uu sido. marka hore waxa uu tegayaa odaygani adhiga eeganaya, sidii qorshihiisuba ahaa waxa uu weydiisanaya caawimo, isaga oo u sheegay in wiilkiisii xanuunsanayay, lacagtii daawadana aanu u haynin. odaygii marka uu dhibaatadiisa u sheegto, weydiistana inuu caawiyo iska daayo, waabuu eryanayaa. marka labaad waxa uu tegaya haweenaydani buurta ku dhuumanaysa, balse waxa uu kala kulmi doonaa wax aanu inaba filanaynin. haweenaydani waxay haysataa qori, sidoo kale waxaa la socta inan yar. gabadhani sababta ay qoriga u haysato iyo waxa halkani keenay intaynaan ogaanin, waxaan eegaynaa waxa uu kala kulmo ninkani. isla markii ay aragtayba waxa ay diyaarsatay qorigeedii, waxaana ay moodaysaa in uu iyada u socdo. ninkii waa uu naxay, sababtoo ah kamuu filanaynin inay qori ula soo bixi doonto. waxa uu isku dayay in uu u sheego inaanu iyada u soconin, balse uu yahay nin socoto oo caawimo u baahan. xabaar kadib markii uu ka caafadhiistay, sidoo kalena uu u sheegay inaanu iyada u soconin, haweenaydii way waraysanaysaa. kadib waa uu u sheegayaa inuu halkan u yimid inay dadku caawiyaan. intaasi kadib aan idinka warraman sababta ay haweenaydani u haysato qoriga, sidoo kalena ugu dhuumanayso halkani. marka hore aan ka bilaabo, gabadhan yar ee la joogta waa inanteedii iyadoo ay dhashay. inanteedan yari ayaa aabaheed rabay in uu ku daro, macnaha u guuriyo oday maalqabeen ah oo 70 jir ah, isaga oo danaynaya lacagta odaygan haysta oo keliya. aabaheed markii uu bilaabay inuu u guuriyo, waxaa kala soo baxsatay hooyadeed, waxayna tuuladani ku yimaadeen si baxsad ah. sidoo kale waxa ay sheegtay in qorigan ay haysato awgii ay kaga soo badbaadisay gabadheeda. waxay arrintani layaab ku noqotay wiilkii samaynaya muuqaalka, balse isagu tijaabadii uu waday wuu ku samaynaya. waxayna u sheegaysaa inay waxoogaa yar oo lacag ah sidato, balse ay ku caawin doonto inta ay ka bixin karayso lacagtaasi. maasha allah, iyada oo aan haysanin lacag aan badnayn, haddana ku jirta xaaladan aad arkayso ee baxsadka ah. arrintaasi kamay hor istaagin in ay caawiso qof isaguna dhibaataysan. intaa kadib waxa uu u sheegayaa inuu keliya imtixaamayey dadka oo uu tijaabinayay naxariistooda. rabbi ayaan naxariistiisa la qiyaasi karine. haweenaydii waxa uu ku wareejinayaa lacagtii uu siday ee ugu talagalay inuu ku abaalmariyo ciddii ka gudubta imtixaankaasi. haweenaydii aad ayay u farxaysaa, waanay sujuudaysaa, iyadoo odhanaysa ilaahayo waad mahadsan tahay maadaama aad gargaarkaagii iga dhigtay wiilkani khayrka qaba. waxaana xaqiiq ah inay hore u ducaysatay, ilaahayna shimbirkii la soo diray uga dhigay wiilkani muuqaalka duubaya. waxa kale oo ay sheegtay inaysan haysanin meel ay u hoydaan. run ahaantii wiilkii waa uu la ilmeeyey xaaladda ay ku sugan yihiin hooyadan iyo inanteeduba. waxyaabaha muuqaalkan inoo iftiimiya oo ay tahay khasab inaynu ku baraarugsannaa wax ka mid a: kow, inaan lagu khasbin guurka gabdhaha aynu dhalnay iyo kuwa inala dhashay toona, sidoo kalena aynaanu guurin qof aysan rabin. laba, inaad isku daydo inaad caawiso qof dhibaataysan xitaa xilliyada aad dhibaataysan tahay. waxaa laga yaabaa in arrintaasi awgeed ilaahay kaaga dulqaada dhibaatada ku haysata. guntii iyo gabagabadii waxaan ilaahay uga baryayaa hooyooyinkeena inagu soo dadaalay inuu ilaahay abaalkooga ka dhigo janno.